kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. In badan ma ku fakaraysay inaad wax barato, laakiin nasiib darro ma u weysay firaaqo aad ku xaadirto goobaha waxbarashada mashquulkaaga oo badan awgeed. Haddaba Fan Academy waxay idiin keentay xal, oo ah inaad wax barato adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo joogo xilliga aad firaaqada leedahay. Fan Academy waxay idiin diyaarisay waxbarasho online ah. Maadooyinka aad ku baranayso online-ka waxaa ka mid ah Diploma in English, aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Englishka. Diploma in Arabic, sidoo kale aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Carabiga. Diploma in Nutrition, Diploma in Project Management, iyo maadooyin kaloo fara badan. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir WhatsApp numberska shaashada kaaga muuqdo ama booqo website-keena fahanacademy.com. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Fan Academy, aniguna waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Darsigan ciwaankiisu waxa weeyaan Vocabulary Part 9. Waxaynu soo dhiganaynay ereyada Englishka A to Z inta ugu muhiimsan. Waxaynu maraynaa qaybtii C, weliba Vocabulary Part 9, ereyada qaybtii 9aad. Waxaynu halkan ka sii wadi doonaa C. Ceremony, ceremony or ceremony. Noun, formal acts, often or often fixed and traditional, performed on important social or religious occasions. Ceremony or ceremony, ereyga ceremony ama lagu dhawaaqi karo ceremony waa noun. Micnihiisu waxa weeye formal acts, ficilo formal ah, often fixed, inta badan la hagaajiyo, and traditional, dhaqan ahaan, performed, la oogo on important social or religious occasions, munaasabado diimeed ama munaasabado bulsho oo muhiim ah. Marka ceremony waa xaflad ama xalfad saa u taqaano. Chairman, chairman, noun, a person leading a meeting or an organized group. Chairman waa noun, magac weeyaan. A person leading a meeting or a meeting waa qof hogaaminayo kulanka or ama an organized group ama group hogaaminayo. Group isku abaabulan oo diyaarsan, qofka hoggaanka u ah ama kulan hogaaminaya waxaa la yidhahdaa chairman, waa guddoomiye. Champion, champion, noun, the best, the winner. Champion waxaa la yidhahdaa qofka ugu fiican markaas ama qofka guuleysta. Sida tartan socdo kale, qofka guuleysta waxaa la yidhahdaa champion. The winner waa qofka guuleystay. Change, change, verb, to make different, to become different. Change waa verb, waa fal ama ficil. Micnaheedu waxa weeyaan to make different, in isbeddel la sameeyo. To become different ama qofka uu noqdo ama shayga uu noqdo wixii hore ka duwan ama shaygii hore ka duwan ama qofkii hore ka duwan. Different, to become different. Judge, judge, verb, to accuse someone of something, usually a crime. Noun, a statement in which someone is accused of something. Judge waa fal. To accuse someone of something waa in qof lagu eedeeyo wax inuu sameeyey. To accuse someone of something, usually a crime, caadiyan lagu eedeeyo qofkaas a crime, fal dembiyeed ama dembi. Noun markay noqoto noun waa statement in which someone is accused of something, waa faalo ama warbixin lagu eedeynayo qof inuu wax sameeyey. Marka judge waa eedeyn,
Chase. Chase, verb, to run or go after someone or something. Chase waa verb waa fal to run or go after someone. In laga daba ordo ama laga daba cararo qof or something ama shay. Chase waa ceersasho ama bursasho. Run or go after someone of or something. Cheat. Cheat, verb, to behave in a dishonest way in order to get what you want. Cheat, verb, to behave in a dishonest way in order to get what you want. Ereyga cheat waa verb, waa fal, waa to behave in a dishonest way in loo dhaqmo si aan daacad ahayn. In order si to get loo helo what you want waxaad doonaysid. Marka cheat af Soomaali waxay noqonaysaa khiyaameyn. In qofka la khiyaamo cheat. Chief. Chief, noun, the person in charge of a group or organization or the ruler of a tribe. Chief, noun, the person in charge of a group or organization or the ruler of a tribe. Ereyga chief waa noun, the person in charge of waa qofka mas-uulka ka ah a group koox or ama organization urur or ama the ruler of a tribe waa qofka xukuma qabiilka. Waxaa la chief. Choose. Choose, verb, to decide between two or more. Choose, verb, to decide between two or more. Choose waa verb waa fal. Micnaheedu waxa weeyaan to decide in la kala go'aansado between two or more. Laba shay ama wixii ka badan marka aad kala dooranaysid. Marka choose waa doorasho. Kala doorasho. Citizen. Citizen, noun, a person who is a member of a country by birth or by law. By birth or by law. Citizen waa noun. Micnaheedu waxa weeyaan a person who is a member of waa qof ka mid ah ama xubin ka ah a country waddan. Uga noqon karo by birth dhalasho or by law ama sharci ahaan. Civilian. Civilian, adjective, not military. Civilian waa adjective. Micnaheedu waxa weeye not military aan ahayn military. Civilian waa qof rayid ah ama shacab ah. Civil rights, noun, the political, economic, and social rights given equally to all people of a nation. Civil rights, noun weeyaan magac, waa the political, economic, and social rights. Waxa weeyaan siyaasadda, dhaqaalaha, iyo xuquuqda rayidka given equally oo loo siiyo si siman to all people dhammaan dadka of a nation ee waddanka ama qaranka. Marka civil rights waa xuquuqda rayidka. Claim, verb, to say something as a fact. Claim, verb, to say something as a fact. Claim marka waa verb waa in qofka si sax ah oo wax u sheegto. Waa ku andacoosho sheegasho. Clash, noun, a battle, verb, to fight or oppose. Clash, noun, waa magac, a battle, a noun marka waxa weeyaan battle dagaal, verb markuu yahayna to fight or oppose in lala dagaalamo ama laga soo horjeedsado oo la mucaarado. Marka clash iska hor imaansho isku dhac weeyaan. Clean. Clean, verb, to make pure, adjective, free from dirty or harmful substances. For example, clean water. Clean, verb, waa ficil, to make pure waa in la dahariyo nadiif laga dhigo. Sidoo kale marka adjective waxaa waaye free from dirty or harmful substance. Waa markuu shayga wasaqda nadiif ka yahay ama waxyaabaha halista ah. Tusaale, clean water oo kale biyo nadiif ah.
clear, adjective, easy to see or see through, easily understood. Clear, adjective, easy to see, wax cad oo la arki karo, si fudud loo arki karo weeyaan, or see through, laga dhex arki karo, ama easily understood, si fudud loo fahmi karo. Clear waa wax waadix ah, aragti ahaan ama fahan ahaanba. Climate, noun, the normal weather conditions of a place. Climate, noun, the normal weather conditions of a place. Climate waa noun, micnaheedu waxa weeyaan the normal weather conditions, waa xaaladda hawada ee caadiga ah ee meel ay leedahay. Marka waxa weeye cimilo, climate. Climb, to go up or to go towards the top of something. Climb waa in la koro ama la aado meel ku aadan the top of something, shayga meesha ugu sareyso. Marka climb waa fuulid ama korid, meel la korayo, meel kor la korayo. Close, verb, to make something not open. Adjective, near to. Close waa verb, to make something not open, waa shayga in uusan furnaanin oo la xiro. Close, xirid. Markay tahay adjective waxaa near to, u dhow, sida he's my close friend, waa saaxiibkay igu dhow. Marka close mar waxay noqotaa xirid, markay ficil tahay xir waa close the door oo kale, ilinka xir. Close friend waa saaxiibkay igu dhow. Cloth, noun, a material made from plants, chemicals, animal hair, and other substances. Cloth waa aalad laga sameeyo dhirta, kiimikada, iyo tinta xayawaanaadka, iyo waxyaabaha kale. Marka cloth waa dhar. Clothes, noun, what people wear. Clothes marka la yidhaahdo waa dharki dadka ay xirtaan. Cloth waa maradii caadiga ahayd, aan tolnayn ama aan jarjarnaynba. Coal, noun, a solid black substance used as a fuel. Coal, noun, a solid black substance oo walaxa adag oo madow ah, used as fuel, loo isticmaalo sidii shidaalkii oo kale. Marka coal waa dhuxusha wax lagu shito. Coalition, noun, forces, groups, or nations joined together. Marka coalition waa isbahaysi, sida ciidamo, koox, ama qaramo isku tegay si wada jir ah.